السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ardayda iyo dadka kale ku xiran baa channelkeena casharada caafimaadka waxaad ku soo dhawaataan lesson labaad ee ahaa nutritionka ama nafaqada. waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii videogii hore daawaday iyo kuwii commentiga ka bixiyay. waxaanan ka soo qaadan doonaa markaa laba qof oo markaa iyaguna comment soo bixiyay baan ka soo qaadan doonaa. labada qofna waxaa la kala dhahaa خلف أحمد حسن تانكس ولا وان سويني كورسكن وانا كافايدي سنة مهد سنتها ولا عاديات بدون ما سنتها ولا keep going بكلها هاي قف كلا بعض ووقع الاستوديو بقو قرن نوض ولا ووضعنا إن شاء الله تعالى ووضعنا نبلع بعشر كينا ما تحكوا جابسين هاي كربوهيدرات كمان سوودني قيبتي بعد ما مرنا why we need carbohydrate markaa maxaan uga baahanahay ama maxay tahay baahida markaan qabno inaan carbohydrate markaa cunno ama cunto carbohydrate ku jirtaan qaadano. Carbohydrate in the form of starch waxay u jirtaa qaab starch ahaan ay u kaydsan tahay marka la eego geedka aan sugar iyo sonkor. Arda macronutrient waana nafaqo looga baahan yahay large amount xaddi aad u badan looga baahan yahay. وانا eating markaan cunno aan broken down burburinana carbohydrate profit waxaan ka helnaa the major source ugu weyn of energy at tamara to feel our daily activities marka uu qabsano wax qabadkeena maalinlaha aan maalinta qabanayno. It is recommended that carbohydrates should supply 45 ila 65% of our total daily energy needs. waxaa qiyaastii lagu qiyaasaa inta carbohydrate ama maalinta aad cuntid ee energy ku jirta inay tahay 45% ama 60% inay tahay. Some of carbohydrate qaar baa weyn consume waxaan qaadanaa is converted into type of starch oo nooc starch oo kala ayaan dhirti ka qaadanaa. marka anaguna qaabkan marka u keedsanna waa glycogen waxaana which is store waxaan ku keedsanaa in the liver beelka aan muscles iyo murqaha for later use mar dambe u isticmaalno as energy ahaan. intaas carbohydrate naga eega waxaan bilaabanaa proteinsku maxay yihiin. proteinsku waxa weeye are made up waxay ka samaysan of amino acids ka samaysan and function waxaan u dhaqmaan as hormones sida hormono iyo enzyme iyo antibody u dhaqmaan kuwaas oo in the immune system marka jirka difaaciisana u dhaqmaan. they make waxay sameeyaan a part of body structure qaab dhismeedka jirka ay sameeyaan like sida connective tissue way sameeyaan skinka maqaarka way sameeyaan and hair iyo timaha. There are approximately qiyaasana waxaa lagu qiyaasaa inay jiraan 20 amino acids inay jiraan baa lagu qiyaasaa. Types of amino acids ka maxaa kamid ah? Amino acids ka waxaa kamid ah essential amino acid kuwa la dhaho iyo non essential amino acid. maxay yihiin essential amino acids? Essential amino acids waxa weeye are those which the body cannot be make and must be supplied by the diet. Essential amino acids waxaa la dhahdaa waa kuwa uu jirku sameysanayn oo aad ka helaysidna quudka markaa ama dietka markaa aad maalinta cunto ayaad ka helaysaa ee proteinka. Animal products such as meat-ka and fish-ka intaas waxa ku jira contain all the essential amino acids ku jira. non essential amino acids maxay yihiin? ardos waa kuwa with the body jirku can make u sameysto enough in ku filan of an are not dietary requirement kuwaas oo markaan laga helin quudka markaan cunno. Thank you aad baad mahadsantihiin endil lesson 2 halkaas ku eegay la soco lesson ka xiga wixii comment aan halka hoose igu reeb.